الله بنراي كيف الله بنراي كيف الله بنراي كيف الله بنراي ديبو الله ونيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبي وناكسن لاتي طوي بشي طوي لاتكي بشي فبراير لوada kun iyo labaatanta barnaamijkeen caawa iyo falanqaynta ayaan kusoo qaadan doonaa caawa barnaamijkeen falanqaynta waxaan kusoo qaadan doonaa wafdigii maanta ka yimid Ethiopia iyo Muqdisho waxay ka tiri ayaan caawa soo qaadan doonaa ruuxantii waxaan ku faraxsanahay ma wafdigaas yimid waxaa wafdigaas wuxuu ahaa wafdi Soomaaliya cadowgeeda koowaad sidii hore dadka Soomaaliya u yaqaaneen waxaas igu yaabadneed maanta soo dhaweyntii la soo dhaweeyay dhalinyaro badan oo horta Soomaaliyeed ayaa ka falceliyay oo runtii ka hadlay laakiin waxaa ugu yaabadan inaa siyaasiyiintii wax ka hadlay ay gaaban yihiin ama ay yar yihiin su-aasha isweydiinta waxay tahay dadka miyaa dalkii ka dhammaadeen dadkii siyaasiyiinta mushkilada dadka Soomaaliyeed ku dhacantay bay la ag tahay maxaase keenay in dadka Soomaaliyeed ay afka juqda gabay in walba albaab aan ooyo albaabkii xir ay u dhacdo su'aalahaas ayaan isweydiin doonaa balse waxaan intaan taas u sii gelin waxaan jeclaan lahaa marka horeysa bal maanta waxyaabo badan meesha ka dhacay muuqaaladan aad arkaysaan maanta laakiin muuqaalo kale jira muuqaalada kale jira waxaa kamid ah muuqaalkan oo kale tusaalahan kan oo kale أبي أحمد دوني مانا بدأني إيه معهن وهو دقيقة وها يا مانتو بدأ سكوة ذي مادين وحاول هالكاس وحاول ترسم رسم الزارة إيه مدحوينها ضد صومالي حس الشيخ إيه حمزة أبي أحمد نواي ما ضد كان معارض واي الحين تاجين أبي أحمد دوني مانو فرنتاس waxay fariimay maanta magaalada Muuse ka dhacay ahayd mid kamida kana maanta waxa ka dhacay waxa ka xumaan ka tacsiyano maanta dil ka dhacay ayadoo Abiy Ahmed dartiis dad loo dilay soo dhaweyntiisii taasi oo Muqdisho maanta dhig ku daatay magaalada Muqdisho waana aad iyo aad wax looga naxo ديرو Soomaaliyeed badoodan loogu yaba dhiigooda sas loo daadiya nacala ay diinana nacala sheedan ku yaale waxaan damir mar Soomaalina wallahi billah ninka saakiska soo baxbadiisa inuu dabaashato ku soo farxad qaato madaxiisa dhiigiisa madaxaas lagu shubay madaxa xabad laga marso wallahi billah لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحنا والله ضمير صومالي ضمير بالعدل ما حتى عمله والله ورميل كاس هويدا ما أنت رش محيد ريم قرتا لا إله إلا الله والله وعصر ديقوا بدينا صومالي إنه نقول ما نصص ديقوا الله داليا وحكي الإسكرافة وعدين طويل مدح ويلا حبت نوعي هاركيسين على حمداسي ويل dhalinyarada dareenka uu bixiyay dareen adiga ku tusi karo way laakiin taas aan u gudbo waxa jeclaa arin kala raba inaan ka hadlo arinta kale ka hadlaa waxay tahay ra'iisul wasaaraha markuu dalkiisa ku noqday beejkiisa muuqaalo soo dhigay muuqaalaas waxa u badan marka fahmi doontaan laakiin la taliyiisa Tolo Guto nin lee oo la taliyaha asigoo xafiiskiisa ayaa wuxuu soo dhigay badda Soomaaliya ayuu calanka Itoobiya saaray marka muuqaalkaasi waxa uu dhigaa waxay tahay guul ayuu tusaaya inay dhul heleen laakiin aan waxayna tuso tan waxay noo ahayd mid kamida waxay noo ahayd murugo horta dadka Soomaaliya soo hoyatay oromai amharama arligay imaahey ma ahaan kar waxaan qaadan karnaa maaha urmayo amhaar taasa badan fiiray sayma Muhammad isaalkiis tusaa oromai amharama ninka Soomaaliya oo dhigle taas ku bareysana laakiin maanta maxaa dhacay farxmadii weyn ayaa dhacday bal markaa waxaan ku maqlaynaa maanta Abiy Ahmed markii maanta lagu uriyay أنت اللي كانوا حالي اللي كانوا مرام بحنا كم من وقت سقف قادة bannaanbaxaasi maanta magaalada Muuse ka dhacay xeebta Liido iyo ka dhacay markii maanta isku soo ay yimaadeen Xasan Sheekh أبي أحمد دوني مانا بدأني إيه معهن waa ereyaday ku luqeynayeen ereyadaasi badoon iima Abiy Ahmed dooni meen maanta horta runtii la ka soo dhig shir jiraan maanta ay qabteen ayaan rabnaa bal wax yar inaan keenaa waxa siyaab ugu dishay shirkan jiraan ninka ka hadlay
وكل تاريخ في عام إثيوبيا سوماليا ودحيس تاريخ سوجرين كسوماليا إثيوبيا ودحيس من شيء كتير تاريخ سوجرين كحوات تقال دل بوب واي تاريخ قرحون أو إثيوبيا سوماليا ودحيس من جست حرية قادنا أفرسر نجو حلك هنا دقالق بلاد بس نكان تاريخ أحمد وشيء يحو شيء بدقيست بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيدا ay soo wada saareen labada dawladood Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga ee Itoobiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed oo booqasho shaqo u yimid Soomaaliya booqashadan ayaa waxay daba socotaa kulamo xiriir ah oo labada hogaamiye yeesheen bilihii la soo dhaafay taasoo xoojinaysa dib u hagaajinta xiriirka labada dawladood labada hogaamiye waxay mar kale cadeynayaan sida uga go'an tahay xoojinta iskaashiga labada dal si ay uga faa'iideeyaan danaha labada shacab labada hogaamiye waxay tibaaxeen xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya shucuubta labada dal waxa kale oo cadeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhiso kalsooni ku salaysan iskaashi diblomaasiyadeed amni dhaqaale iyo bulsho Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo mustaqbalkoodu isku sidkan yahay dan wadaag ah sidaas darteed labada hogaamiye waxay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta himilooyinka labada shacab si loo xaqiijiyo horumar waara iskaashi dhaqaale iyo xoojinta xiriirka shacabka labada dal sidoo kale labada hogaamiye waxay soo dhaweeyeen bilowga wada hadallada farsamo ee ka socda magaalada Ankara sida ku xusan bayaankii Ankara iyagoo muujiyay sida ay uga go'an tahay wada hadal wax ku ool ah iyo iskaashi waxay sidoo kale bogaadiyeen is-afgaradka laga gaaray wada shaqaynta madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka difaaca qaranka Itoobiya taasoo ah talaabo muhiim ah oo xoojinaysa amniga iyo xasiloonida gobolka labada hogaamiye waxay mar kale adkaynayaan sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah uga shaqeeyaan danaha الله ماشي يجون وعند على مقارنة دوشي صار أذكر كيسان أنا سكر دان ينتصو بعرف رزوارة لتريا رزوارة إثيوبيا سفعنا ينتصو لتريا رزوارة إثيوبيا ما أنت برتي سمر كنت تجي ملز أبي أحمد كل نوع أيو برتا بوستن صار على كوالتين حبت صومالي وكيالا سمر كيسين حبت صومالي وكيالا على كان أوكي حبتان أنا تصامر حبتان حبت لوك الصومال أوكي وكان تولو جوتو عليها تولو جوتو صبز بوستان صاري تولو جوتو بط الصومالي صاري مركزان مراكيب صاري إثيوبيا على كده صاري سو مركزين يا مركا تولو جوتو هذا كورتو تولو جوتو بوستان هذا تولو جوتو كورتين وأركيسين تولو جوتو وعلى طريقها رئيس وزراء إثيوبيا مركا ما بكانوا صاري إثيوبيا صاري وحنا صاري sawiradan kale caadiga oo soo dhigay aan fiirshabal aan wax fiirino sawiradan soo dhigay Itoobiya soo dhigay markiisi maabka Soomaaliya okay waa soo dhigay saanadan soo dhigay waa tuulu guutu Itoobiya maabkiisa soo dhigay marka haddana maabka tan soo dhigay haddana waxaysan qoftu ahayn lama sheego waqti calanka Itoobiya badda iyo maraakiib iyo bad soo markiisiin ya marka baddaas meesha la iska sii lahay iyo kulleetu cidaan caawa si weyn ugu guuleysteen guusha laakiin Abiy Ahmed igama guuleysan Xasan Sheekh iga guuleystay Abiy Ahmed igama guuleysan Xasan Sheekh iga guuleystay bal aniga dadka Soomaalida aragtooda bal wixii maanta ka dhacay dadka Soomaalida u deynina fiirkooda iyo aragtooda bal wixii ka dhahay lahaayeen laakiin bal qaybtii ganacsiga aan gudubno isku soo noqon insha Allah hambalyo ma kooysta dhibaataan xal ma weysaneed ka fikiraysa in badan taatintii inay iga gurmato waa qubaysanaa tinta saana dhahaa gaftin waxaan ahaan jiray oo badan oo ma aragtay isdhexdhex geli jirtay oo aflaaqa markas inaan iska jaray ahaa jirtay laakiin tin badan oo volume leh oo burbursan oo madow ah haystay haddana tinteedii madowgeeba kasoo tagtay tin brown oo budbud oo saas uu jajabayso oo maxaan ku iri midabkii ka dilmay oo qafiif bilaaros inta inta cadaa ka maqan haddaba dhibaatadaasi xalkeedu wuxuu noqday saliidda la yiraahdo rintaas haddaba si online ayaad ku heli doontaa adoo la xiriiraya ciwaanada shaashada ku qoran meel walba dunida ku joog haddaba waxaan ku leeyahay ku dhaafeen saliidda rintaas hambalyo
waxaan rajeynaa intaasina oo adeegi bulsho ahaa marka insha allah waxaan jecelnaha balqadka annagoo isku dayayna inaan dadka sama u furno bal waxay maanta booqashadii etoobiya ay ku timid magaalada muqdisho abiy axmed waxa bogga qarsan waxaa la seexday iyo heshiisyada la seexa waxaasu waa xagga hoose waa underground waa la ogaan doonaa waa soo bixi doontaa waqtigeeda la gaari doonaa waay laakiin waxaan aaminsan waxay tahay abiy axmed midda ugu fiican uu kala tegay waxay tahay soomaaliya inaan meel aan dad la aamini kara aysan ahayn midda mashruuc faa'iida u weyn waxay tahay uu ka tegey soomaaliya ma ahan dad la aamini karo soomaaliya ma aha dad loo heli karo soomaaliya ma aha dad la garab istaagi karo soomaaliya ma ahan madaxda jirtaa dad la garab istaagi karo loona hiiri karo taasu fariinta koowaad u diraa fariintaas fariinta koowaad oo uu diraayo abiy axmed oo muqdisho tegey fariinta koowaad uu diraayo waa fariintaas fariin kale uu diraayo ma jirto soomaaliya annaga saan doona ka heli karnaa soomaaliya balan male axdi male waayo soomaaliya ereyga fariinta uu diray booqashadiisu ay dirtay ee ugu weyn waa taas waay waa dhici kartaa fariin kale laakiin fariinta midda kale heshiisyada hoosaadka iyo dhacay anugu taas caalamulqeyb waxa caalamulqeyb ma sheegi karno laakiin inta muuqata waxay tahay waxa dhacayay soomaaliya wax lala heshiiya oo aniga igaga fiican anaa inka aqoon og anaana saa rab ula dhaqmaayo marka beri haddaan soo qeylno iyo haddaan berina la soo weerro cidna aamini karta cid isku kalsoona sii kartaa ma jirto tan waa mid ka mid a guusha taariikhiga abiy axmed gaaray waxaan arkaynay in abiy axmed annagu aan dadka ii sheeg maxaan ku iraa danaha u yimid bal faa'iidada aan ka helin ii sheeg dhalinyaro soomaaliya maanta u dhimatay dad soomaaliyeed ayaa waxaan arkaya dhibaato badan ay ka soo gaartay ha noqdaan dadka magaalada deganaa dad xataa isbitaallada dadka booqa waaya jirta oo jiidka laga xiray dhibaatada dadka aan ogala waxay tahay ninaan shalay tanasul aan ka muujin dhibaatooyinka sheegashadii dhulka badda soomaaliyed dhulka soomaaliyeed iyo handadaadii uu sheegaya wax iska bedelay iyo wax uu iska bedelay midna ma jiraan halkii buu taagan ilaahay in ku dheershe halkii buu taagan halkii ayuu taagan shalay aan taagnay maanta taagan marka dhibaato intaas la eg nin shalay sidaad ogeed soomaalinimadaada iyo dalkaada jiritaankaada u diidana oo qaybinaya inaan maanta haddana bal waxaan uga bedelna ma ii sheegi kartaa bal meelaan ku heshin taarikh xumada uu ninkaan haddana dad ku sheegan ka yaabana laakiin waxaan rabaa intaada qayb intaada wax sugudbina bal waxaan rabaa bal muuqaalka dhalinyarada maanta ii soo direen oo ay noo soo direen oo muqdisho runtii dhalinyaro aad iyo aad soomaalinimadu iyo wadanadu dhab ay ka tahay bal waxay ka yidhaahdeen maanta markuu booqashada uu ku yimid waa halaaqayaa maanta badda iskugu wada imaadeen halkaas waxaa fursan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh iyo xamsa abiy axmedna waa imaadeen dadka hadna mucaarad waaye waxay taagiin abiy axmed dooni maano asxaabta idinkana waxaa leedinka rabaa maraanbax inaa kumandig waa kusoo qabqaadataan abiy axmed dooni maano baddeena ii maahan waa halaaqayaa maanta badda iskugu wada imaadeen halkaas waxaa fursan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh iyo alla ciise horta taas waxay ku tusinaysa muuqaalada nagala qeyb kamida muuqaaladana noo soomaaliya bir waxaan ogeyn xataa internetka in culeys la saaray si dadka aynan u maarata ii sheeg aynan reaction u qaadin marka wadooyinkoo la xiray wadooyinka meelo badan laga xiray dadka sidaas kugu soo gurban iyadoo la ogaa in banaanbaxaas u dhacay banaanbixi marka laftiisu waa la caburiyey waa la kala gooyey si aana ujeedooyinka la rabaa inay u dhacaan taas kili kuma siman oo magaalada waxaan ogeyn intaas iyada ay tahay ay dad ay ku dileen waa kana dhalinyaro soomaaliyeed badooda loogu imaa dhiigooda sas loo daadiya nacala diina nacala shaytaan ku yaale waxaan damir mala soomaalina wallahi billah ninka saakiskaaga soo baxbadiisa inuu dabaashaata ku soo farxad qaato aan madaxiisa dhiiggiisa madaxaas lagu shubay madaxa xabad laga marso wallahi billah laa ilaaha ila allah wa anna muxammad rasuulullah waxaan wallahi damir soomaaliyeed damir bilaadanimo xataa mana wallah warwiilkaas hooyada maanta dhashay maxay dareemi kartaa لا إله إلا الله والله ما عصر ديك بدينا سوما إنه نقول ما نصص ديك الله دانيا لكن إسكافه وعدين طويل مرح ويلا حبت نغير دينا سوما بدو إنه نقول ديك الله نصص الله دانيا نعلا يدينا نعلا شيطان كويالي وحان دمير من سوما لنا والله بالله إنك ساكس كان صوب حبتيس إنه قد ما شاتك كسوب فرحت قاتو أنا من عيس ديكيس من حاس لقصوبي من حبت لك مرش والله بالله لا إله إلا الله والله bal taas waa dadka soo la qaybsanayna bal marka hore iska qayb gala hore assalaamu calaykum
أحمد وين مقشاو ملنا سوق سوري وكحماي لقوم مغلق كادي سوري وكحماي كادي هلا وين مقشاو ملنا أحمد يا هي كادر الله حقي ورا الله waxaan maleynayaa inaan hadda ismaqli doono insha allah saan kula joognay iikaadi weli isma maqalneen horta waxaan ka tacsiinaa intii maanta dhalinyaradii maanta dhibaatada dadkii uu ku soo gaaray dadkii dhintay dhammaantood horta waa ku tacsiinaa ilaahay waxaan uga baryaa in ilaahay maaragtay jannadii firdowsi ka waraabiyo intii dhimato waa dhimatay inta nool insha allah axmedow ku soo celi salaafi kara allah ku soo celi adigoo maas aad iyo aad kaga mahadcelina ku soo celi saaxib waxaan rajeynaa intii dhimatay waa dhimatay allah u naxariisto intii nool ayaa ilahay waxaan u baryaa in ilaahay على والله ما شاء الله أحمد واكو مقلا سفيان كو مقلا برادر هروقل مركه إن شاء الله بالماتر تحد دعوة كتعسيننا برادر هروقل إن شاء الله وحد معاك كاغا بحي صفك كلمات برادر أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامت موسيقى السلام يا أديكو دادية برامجك إيو كامر قادة إيو أمد الصوماليات نداون دون تنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوحى الله يا هاي إنا لله وإنا إليك راجعون كل نفس دائفة الموت دنيتي كشهيد كل متي وحكتر اللوت لك إلهي نحرستي كان الله كورابي والدينتي تدكي إلكي كتجانا تحاسس لايين سمري ما صدق الله كسير آمين الإلهي كبريا أنت هتان كيسو كتبو قلت وعيد والكتالة على الحموة قف كستو ضمير له قف كستو موادن ما أنت لمشهد حق واي صح سببته دت كان أنا هقامنا ماشى سجوبنا ما هدت ولا شيء عيدي عالم الصومالي أصل هنجيب إنه ورا عافية تا هذا أنا يا بنهاي شرع مسبح والوجود كنا محل قلنا الكلام حقها كفر بيتنا والوجود كنا محلها وأشياء حبشين صح شرع مركز رجي شرع هاي على الوجيسي كم تهاين شق على الوجيسي شق هبلكاس صلاة كذا يعني إلى أحمد ديري مثل كلا هايستي أجاسمها جولست ما أنت محب هذا لا يعني ما wax la sheegay lama yaqaan dadka waxa dantaadan iska wada hadlin ada xasan shaqo la hadlaa maaragtay weli warbaahinta intuu dibadaha aadaya dad kusoo noqonay asoo kala hadlaa bal fiir ilaahan ku dhaashay xataa sumcad darrada iyo fadeexada iyo xataa procedure iyo nidaamka dowladnimo si uu ciyaarayo asagoo madaxweynaha inuu xataa inta tago airport ninka sugo ra-iisul wasaar waddanka leeyahay xataa dhaqan madaxweyne ma xataa dhaqan ku dhaqmo marka waxa la seexday iyo xog intaad ka haysaa maxaas isleedahay axmedow waxa laga wada hadlay la wasixday maxay noocii ku noqon karaan hadda waxaan arkaya beej la taliyaha asaga abiy axmed oo beejkiisa soo dhigay asagoo badda dhexdeeda xeebta ugu taagan tahay dekada iyo maraakiib u xiran yihiin calanka etoobiya u suran yahay haye maxaa sila oo soo boosta gareeyey hadda haye maya waxaa horta harsan waa saxiixii ugu dambeeyey ma garata
oo laastiga ahaa waxaana la sugayaa in ankara la iskugu imaan doono in addis ababa la iskugu imaan doono aana garanayn ma fahamta sax ninkii atoorihii weynaa ee Erdogan ayaa inuu yimaado waa garta hadda guddiga farsamada Istanbul wada fadhiyaan kuwa Soomaaliya waxa loo fadhiyo marka la qaraa waxa dhulkayga waay ma wax kale oo laga hadlayo ma jiraan wax kale yaal meel in dhulkayga la qalqasho maahan Sooma waxa la isku haysto wax kale oo meesha yaalo ma jiraan haye aban oo habkii dhulkaas loo kala qaybsan lahaa waa garta aban haddana waa kuu sii sheegaya ayaa Ethiopia mas'uuliyaddeeda qaaday ayuu leeyahay Erdogan waa horan qolkan waan ka sheegay Erdogan siyaasi ma laha saaxiib joogto daran gaar ah ayay leedahay siyaasad marka ninkan afmugeedu ku cadeeyay oo Ethiopia 2 milyan iyo bar oo project oo dhaqaalaha naga soo galo sax Soomaalina 75% naga soo galo marka qofkii mukuuma tuuraa maslaxada dalkiisa u fiirsanaya sax marka xasan intuu galan la yahay waa intaas sax marka dhibaatada taalana taas waa waliba dhimashada maanta waxaan xaalaya ka darnay waxaan madaxtooyada gudaheeda lagu sameynay diyaarado helicoptera ciidamo lagu soo dejiyey oo ciddaa doontina weydiye xaqiiqa askartii joogtay koofi guduudka ahayd oo meesha ilaalinaysay waa laga saaray Ethiopiaankaa la wareegay qoryaan shaamad suutarkaa la wato dadka waa laga saaray xasan sheekh iyo kaamilistayaal iyaga ee keensadeen iyo reer labadiisa xaasood iyo ra'iisul wasaaraha jooga meesha hal qof oo shaqaalaha meeshan jooga waa la wada fasaxay aawe hadda xasan sheekh intuu baxo adsabo madaxtooyada ma ka dejin kara adsabo araad kiilo ciidan u wato ma marka dalnimadan taasay noqotay marka ninkan hogaaminaya taas marka ugu dambeyntii isagaba saas kuma ogola marka ugu dambeyntii Axmedow misladahay arrinkaani xasan sheekh guul uu ka gaaraa mara guusha uu ka gaarays oo siga raadina maxay tahay mar haddii dhulkiisa asiga waxa lagu gortama ay tahay dhulkiisa iyo ay tahay muxuu dhaafsan karaa muxuu dhaafsaday isleeda muxuu dhaafsaday wuxuu dhaafsaday ma laha wuxuu dhaafsiistana ma laha guul Soomaaliya ka gaarteena ma jirto ma garad qorsho oo lagu xisaabtamana oo la isku haleyn karana meesha ma jiraan meesha guul 3 dhibcood oo toos waxa u qaatay Abiy Ahmed meel cidlaana ka qaatay jaa markuu badii tagay gacmaha la kalkalayay biyihii waay waa gaarawa dantaydu waa gaarawa أنا كوفا وكامل دنتي وقاروا أنا كامل قولي سبرادة الله يسمع شاء والله دك الصومالي أقوي أنا لما أنتوا تخفر بعض ديرني صار أنتم وكذا ديرني سبحان الدريميسا إن كان كل تودك وقعنتك به لكن تاريخ يا واحد حسدون واحد الشيء دونتا حدي رنت الله نظام حواي مال بي أنت بنا حسد دونتا وعن حاجة إن دتك دي أو كهلا أو سياسيين ما دعوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج كسر دوب سوالف دين تي في برنامجكم 6 صباح لا ساعتين جعلها بوقشيدي مانتا معك هذا بحي أرتاح فكر كذا. أنا بمرة وقاس أحمد سرابان شداء وكنا المجالات مقدسة. وقاس كسر دوب صلوا معصم الله عيسى. والله ودوا هاي
waad mahadsantahay axmed booqashadii maanta dee nabadgelyada soomaaliya unbaa la iibinayey waxay la tahay waddanku inuu nabadgelyo yahay oo madaxda ugu sarreyso waddanku ay iman karaan oo nabadgelyo iyo horumar iyo ku socdaabaa dadka la tusayay oo waxaan ku weydiina walaal nabadgelyo ma ahayd caawa oo adigii maanta aeroboortka madaafiici lagu soo tuuraya meeshaasaa nabadgelya ka jirtaa aan runta usoo sheegnay hoobiyaa lagu soo garaacayay waxba kama jiraan wax madfacoo la soo tuuray ma jiraan oo aeroboortka ku dhacay okay ii kaadi marka okay waxaan kuu sheega marka ma waxaa nabadgelyaa in maanta magaalada muqdisho dhiig uu ku dabatay dadka soomaaliya lagu laayay ee dhalinyaro soomaaliyeed ee banaanbaxaysay ee ka hor imaanaysay badooda iyo dalkooda difaacay dhalinyaro soomaaliyeed afka ka hadlaya fikirkooda cabiraya in rasaas lagu asqeeyo ayaa waxaa leedahay nabadgelyaa rasaasta waxaa riday qof inamadii askarta ahaa ee nabadgelyada ilaalinayay xabaduna nin bay ku dhacday laakiin waddanku waa nabadgelya boqolkiiba ama boqolkiiba odhan karaa iikaadi nabadgelyadaad sheegayso waxaa waaye qaraxyadii magaalada ka dhici jiray oo yaraaday oo ama la waayey ama suurayba soo maha iyo dilalkii faraha badnaa magaalada ka dhici jiray dilalkii magaalada ka dhici jiray aan ku weydiiyey magaalada iikaadi marka ugaas nin aan runta isu sheegnay dagaalkii laascaadood ka hor magaaladan qaraxi waa jiri jiray dilkuna waa jiri jiray laakiin maalintii ay waddadaas xirantay oo dagaaladii waqooyiga ay bilaawdeen ee waddadaas xirantay dib dambe looma arkin qaraxyo dib dambe looma arkin dilalkii shabaabku waana halka keliya oo dagaalkaasi ka horna dhibaatadaas weligeed way jirtay waxaan ognahay gaadiid ka soo baxa gobolladaas ka yimaada weliba ka yimaada gobollada waqooyi oo lagu qaban jiray lagu qaban jiray hiiraan ayagoo TNT-da waxyaalaha qarxa wada marka sow lama odhan karo nabadgelyada lafteeda waxaa qayb ka ahaa dagaaladii gobollada waqooyi iyo kala xiranka gobollada waqooyi ee waddadii dheereed ee gaadiidku mari jiray marba hadday kala xirantay taasaa nabadgelyada qayb ka ah ma ahayn anigu waxaa ka soo jeeda gobolka tagdheer ee burco gobollada waqooyi wax al-shabaabina ma joogaan wax gadaacishiina ma joogaan laakiin gobollada waqooyi waa meesha shabaabka looga taliyo madaxda shabaab waa gobollada waqooyi madax ayay ka soo jeedaan saraakiisha ugu saraysa ayaga taas boqor boormudow sida u sheega waay oo uu caddeeyo shaki ugaas malaha ugaas shaki kuma jiro taas asigaa sheegtaba anagu wax tabcan ka sheegana maaha taariikh ahaana saad laga soo bilaabo shabaab say noo soo galeen gobollada koonfureed usoo galeen mas-uuliintooda waxay ka soo jeedaan gobollada waqooyi haddii runta la sheegayo horta hadalkayga sug waqooyi ma joogaan wax al-shabaab la yidhaahaa qofka maya waqooyi waa joogaan ma joogaan iskuma haysano kama hadlayno taas laakiin mabaadiida iyo siyaasadda iyo dadka madaxda ka ahi waxay ka soo jeedaan gobollada waqooyi qof allaala dadkaasi waa dad soo yaacay dadka soo yaacay kasoo jeedaan gobollada waqooyi marka iyo golow annaga waxaa nagaga badan koonfureedka nagaga badan annagu 4-5 haddaanu nahay dadkan boqolaalka kun ee meesha jooga waxaweye arsenaasha waxay ka soo jeedaan koonfur waa runta taas kama diidan madaxda laakiin mas-uuliyiinta laakiin waa dinka waxaa hoggaan ku ah madax u ah sida uu u sheegay mas-uuliyiintoo dhan annaka ma aha mas-uuliyiintoo dhan annaka ma aha ninka ugu sarreeya waa dinka hoggaanka sabab waa dinka laakiin boqor ugaas adigoo mahadsan weliba aan kaaga mahad celina inaad tahay dadka soomaali aana kala jecleen oo wadaniyadda soomaalinimada ku dheertahay ay tahay inaan xaqiiqda aan usoo noqono ninka boqor buurmadow waa nin kamid a suldaamada dhaqanka sida adigoo kolomida oo mustawaa leedoo kale leh si cad ayuu soomaalida taagan ayuu u sheegay in gobollada waqooyi ayaguna ay yihiin haddii beesha isaaq la yidhaahdo ayaguna ay madax ka yihiin magaciisa shabaab ay madax ka yihiin murna kama taagana sidaa ogsoonahayna dhalinyaro badana ka timaada oo hadda mar walba ka yimaado gobollada waqooyi ka yimaado laakiin waa lagaga badan yahay waana boqolkiiba 1,000 mar ay lagu jibaarma taas war kama taagana laakiin madaxda ugu sarraysa iyo siyaasadda laga duulaabi waa siyaasad qaba inaan koonfur aysan degin taas ma isku diidana anigu taa waa kugu diidanayo koonfuri hadday tashato oo caqligeedu shaqeeyo oo gacmaha isqabsato reer waqooyina wax ma yeeli karaan reer puntlandna wax ma yeeli karaan cid kalena wax ma yeeli karaan yeelitaan iyo yeelitalaan labay kala tahay laakiin waxaan kala leenaa siyaasadda u dugsan waxay tahay haddii koonfur aysan istaagin waqooyi waxbay gaari kartaa si taasi aynu u gaarin
ayaa siyaasadooda waxay tahay inay marwalbas koonfur aysan degin taas yaan kusii doodin aan usoo noqono biishubkeena usoo noqono baabuur waxaa jirta oo baraha bulshada ku jirta haddaad doonto aan kuusoo diri karo baraha bulshada ku jirta oo inta badan waxyaabaha qaraxyada wadaa inta badan waxay ka imaan jirtay aaladan t n t-du gobollada waqooyi waxaa lagu qaban jiray hiiraan ama maarata macawsiyeeda ayaa qaban jirtay inta badan waayadii dambe markii dagaalada dhaceen wixii ka horreeyey laakiin dagaaladii markay dhaceen kadib waa la waay aan kuu sheegay saca waxaa soomali waxay tira saca naas adag iyo weerta maxaa kulmi dagaalkii laascaano dhicitaankiisii iyo joogsigii qaraxyada muqdisho ka joogseen maxaa wada kulmiyey marka ii sheeg bal waxaa wada kulmiyey taas ii sheeg dhiig cusub baa lagu shubay madaxweyne cusub baa la doortay oo maxamed cabdilaahi farmaajo markaa dalka joogay dagaalka laascaano markuu dhacay dagaalku laascaano xasan sheekh madaxweyne waa laba sano madaxweynaha dagaalku horta hal sana kasoo wareegtay wagegiisa ma faranta anigu xasan sheekh markii dagaalka laascaano dhacaya baan idhi ayaan imi muqdisho xasan sheekho dhowr bilood haystay bila yaroo qiimo lahayn marka isbedelka waxaa keenay madaxweynaha cusub iyo dhiigga cusuba lagu shubay dalka xasan sheekh maxamuud baa shaqeeyey siyaasadda amniga dalka wax gobolada waqooyi siyaasadda axmed yusuf aan ku dhameeyo xasan sheekh baa guushan gaaray ninkuu guushuu gaarana lagama xumaado al-shabaabka xasan sheekh baa la dagaalamay dalkiiyo dadka waxa xoreeye xasan sheekh iminkana gaadhiga burca ka soo baxay hargeysa ka soo baxaa meel kastaba soo maray muqdisho waa yimaadaa halkaa wax yaallo oo al-shabaab joogtaana ma jirto cidtaa kuleysana ma jirto ciddii lagu tumana waa la xidhaa oo jeelkaa loo diraa ii kaadi baabuur aan lagu soo kontaroolin gobollada sool iyo aan lagu soo kontaroolin muqdisho ma tago yaan been isu sheegin taas xaqiiqa waaye waa runtaa baabuurka berbere ka soo baxa miyaa wuxuu tagaa soo sool unta ka soo boodo ayuu wuxuu yimaadaa meel mudug ama nugaal yimaadaa dhulku waa naqaanaa gaadhiga kuwii burcad ka soo baxay oo kuwii hargeysa ka soo baxay waxay ugu yimaadeen gawaarida watay muqdisho xaggee soo maraan ii sheeg meesha soo mara ii sheeg wadadii soo mara ii sheeg markuu ka soo tago burcad ka soo tago xagguu soo mara waxay soo maraan eergaabay soo maraan baran bay soo maraan halkaasi ka soo boodaan marka eergaawata ka soo maraan marka daraawiish ku dhameeyo waxay ka baxaan gowla laalay maraan xagga sare soo maraan Ethiopia soo dhex maraan halkaas ka soo galaan sanaagna waa sheegay fiir Ethiopia waa sheegay sanaag Ethiopia xirib dhulbu ma dhaxeeya waxa u dhaxeeya gobol dhan sanaag liiraa u dhaxeeya maartay eergaawo iyo maartay laba meelood weeye laba meelood baa ku kala tilmaamaya sanaag waa gobolka sanaag tog dheerna waa anta sanaag xuduud ma Ethiopia sanaag xagee xuduud ka Ethiopia waxaan ka hadlayaa beledhiig bay xuduud leeyihiin buntland sanaagna waxay leeyihiin buntland sanaag mare qolada buntland maraysana sanaag bay maraan aan ku dhameeyo qolada tog dheer ka tegaysana Ethiopia maraysa halka xamar ka gelaysana beledhiig bay ka baxaana gowla laalo qararay maraan halkaasi ka boodaan marka waxaa leeyahay daraawiishta ciida dhubaanta iga soo dhex marin ayaa baabuurku hargeysa ka soo baxa ama burca ka soo baxaa asigoo dhulbaanta soo dhex marin ayuu wuxuu soo dhex marayaa isagoo soo dhex marin oo wersangeliya ma jartan soo dhex marina waa yimaadaa isagoo aan soo dhex marino waxay ogaadeen soo dhex marina wuu yimaadaa way yimaadeen muqdisho okay halkaas ugu tag marka waxaan kaa rabaa siyaasadda amniga gobolka banaadir aan dib ugu noqonaa waxaad tiri qaraxyadii magaalada waa ka yaraadeen saan ku yiri waxaan ku yiri waa kula duwana fikirka kula duwana aan kuu noqday aan dib ugu noqday haddii amnigu magaalada muqdisho uu fiican yahay aad leedahay oo ammaankii aad leedahay waxbaa wixii baa yaraaday iskuma diidanin muran kama taagana allah u saa'idiyo inaad dhibaatadaas aynan sii socon allah ka dhigo oo si nabad hadda loo yahay allah ka dhigo laakiin aan ku weydiiye nabadgelyada aad sheegaysaa shabaab wuxuu joogaa ceelasha biyaha ayuu magaalada muqdisho ka joogaa ceelasha biyaha markii la gaaro shabaab waa joogaa taasa waxaad leedahay marka shabaab waa laga saaray siyaasad amni oo dalka wax iska bedeleyn ilaa hadda nooma muuqato marka ma waxaad leedahay xasan sheekh siyaasad amni ayuu inta la yimid ayaa amni lagu sugay ayaad weli xoogaa aad ku adkaysanaysaa usuldaan boqolkiiba boqol baan ku adkaysanayaa waana been ceelasha biyahana ma joogaan suuqa xoolahana ma joogaan intaba anigaa tegey anigoo koofiyadeeda sita oo waxaweeye cimaamadeeda sita
ayaa tegey intaba ma joogaan maalin dhawato waxaan qofka u soo aasnay ayda dayniile waanu dhaafnay ayadaan ku soo aasnay afkooye meel u dhowna xabaalaha barakaad leehanaan qof baan ku soo aasnay waxa weeye magaalada iyo eeriyadeeda iyo aaggeeda toonna ma joogaan waa been noqoto hadday nabadgelyo jirto oo wax lagu faraxsan yahay laakiin meel hadda siyaasad amni oo guul muuqato oon caawa annaga hadda aan haynaay horta ma jirto oon ahayn qaraxyadii in ilaahay muqdisho ka yariyey taasoo ogsoona iyo dililkii faraha badnaa waa ay jirta intaasu laakiin dagaalkii lascaarood ka hor dhibaatadan waa ay jirta waa soo taxna aan ka gudubno ugu dambayntii waxaan rabaa marka shalay muuse biixi wixii laga diidey baddii laga diidey wixii laga diidey waxay ahayd inaan dhulka soomaali etoobiya aan bad soomaali loo ogola etoobiya mislada abiy axmed maanta baddi waa loo ogolaaday sifaha iyo dhaqdhaqaaqa uu sameynayana in baddi la geeyo waxyaabahaas maxay ku muujin karaan horta marka hore dalkiiyo dalkaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa loo doorto ka mas-uula dowladda etoobiyana soomaaliya oo dhan badaheeda way isticmaali jirtay ta berbere isticmaashaa ta hobyo isticmaashaa ta boosaaso isticmaashaa ta muqdisho isticmaashaa badaha awalba kamay maqneen iminkana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma isticmaashee waxaa ku ekaataa berbere isticmaashaa taasaan ogeyn iyo midaan puntland ay samaysatay beri dhaweyto ay xaarxaartay labadaas way isticmaashaa gobolada dhexena way isticmaashaa gobolada dekadba male axmed madoobena way isticmaashaa badaha soomaaliya anaa soomaaliya jooga kulligood way isticmaashaa waxbay kala soo degtaa awal horeba soomaaliya kamay maqneen madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dadka muu sheegin baduu siiyey abiy axmedna muu sheegin bad la siiyey waa arrinkii waxaa laga hadlaayo maxay yihiin haddii etoobiya aana bad iyo arrimahan laga hadlaynin waxa laga hadlaayo laiskugu yimid ma ii sheegi karta bal aduu caaw ii sheeg dadka soomaalida ku maqaana waa fiican tahay inaan waxaa isugu yimi khilaafkii taagnaamunbaa la xaliilay bad dhulkaada raba soomaan khilaaf wax kaloo ahaa khilaafka iyo baddaas waa khilaafka iyo badiina meel iminka bad laga siiyana lama sheegin badda meel laga siiyana lama sheegin sultaan ukaadi baasha aan runta ka sheegnay meel badda looga tanasulo weli ma haysaa etoobiya leh baddii soomaaliya karim waa ka tanasulnay meel kuleedaa weli ma haysaa iyo heshiiskii aan muuse bixila kale waa ka tanasulay iyadoo leh weli ma haysaa aan ku anigu wax adan naqaanaa ma hayo okay waxaan haynaa laakiin warkii noogu dambeeyey wuxuu ahaa waa inaan maranbiyood etoobiya u helnaa 150 milyan baan nahay waa inaan helnaa xoog iyo xeelad mid inaan ku helno halkaas inoo taagnad baasho meel uu kaga degana ma hayno muuse biixina heshiis taariikhiya ayaan la sixday iyo halkaas etoobiya noo joogtay welina waxay kasoo degta male labadiiba halkaas ay laalan yihiin oo jeebka ugu jiraan etoobiya weli kama aysan noqon halkaas inoo taagnid waxaa laga hadlaana waa wax lamida in ayadii wax kamida loo sharciyeeyo saan isleeyahay ilaahay baa og laakiin saan isleenahay ama 100% sawirada noo soo baxaayo muuqaalada noo soo baxayo muuqaaladaas kamid ah ugu dambeyntii sultaan adoo ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa aragtidaada ugu dambeysa ee fariinta ay diraysaa ma isleedahay fadhigaan shirkaan maanta laisku yimid waxa uu soomaaliya quus u quusinaa in dalalkii soomaaliya saaxiibka la aha oo ay ka mid tahay masar ay ka mid tahay eritrea ay ka mid tahay jabuuti ayuu wuxuu signaal u diraa inay tahay inaan soomaaliya dad laysku hadlay karo iyo mas-uuliin laysku hadlay karo ama la aamini karo inayna meesha jirin fariinta ugu weyn oo axmed abiid halkan ka dirayo ma ku muuqata taas iyadoo aan soomaaliya ayna ka tanasulin waxyaabihii shalay ay ku dacwoonayso iyadoon la ka tanasulin inay roog daabi u dhigto ma tahay taasi ma ku muuqataa oo maantase ma tahay in masar iyo xulufadii shalay noo soo helisay inay dhici doon inay mar damba noo soo heliyaan oo etoobiya ay maantana keliyeysatay suuragal ma kuu tahay signaalkaas meesha ka baxa inay tahay horta marka hore dee xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuu tegay etoobiya sida loogu soo dhaweeyey muqdisho loogu soo dhaweeyey taasoo dhawinta wax macnaa samayn mayso laakiin waxaan leeyahay etoobiya dhulkeena iyo baddeenna uma ogolin dhulkeena iyo baddeenna uma ogolin haddaynu soomaali nahay waynu ka soo horjeednaa wax la siiyana laynoma sheegin dadkeena xulufada ahayn dowladeena xulufada ahayna runtii kalsooni darro badan way ku dhacaysaa laakiin madaxweyne xasan sheekh sidaad u ogtay moo diyaarada aad buu raacaa isagaa laga yaqaanaa siduu qarxin lahaa dowladaha kale
etoobiyana waa cadowgeena koowaad baan leeyahay anigu etoobiya ma taageersanin etoobiya waa cadowgeena koowaad صح wadeena iyo dhulkeena ay doonaysaa waana ka soo horjeedaa etoobiya alla ciise guulayso horta suldaan sida horta soomaalinimada oo wadaniyada aan kugu aqiinay adaa ku dhowro aada horta sin soomaalinimada ku weyn tahay oo dhiigga soomaaliyeed midka jooga koonfur iyo midka jooga waqooyi iskugu mid yahay inaad taan aaminsanahay laakiin ugu dambeynta waxaan rabaa marka hadalla waan ku odhanaya haye kelmadna waan ku odhanaya waxaad ka soo jeedaa koonfurta soomaaliya koonfurta soomaaliya haddaad xasan shiikh ku kacsan tahay soomaaliya maalin ay ka nabad fiican tahay oo ka horumar fiican tahay muqdisho haddaad daar fooq dhakadii isku taagtid waxaa laga dhisay 2,000 oo diyaano oo mid waliba 30 dabaq iyo 40 dabaq nabadgelyada waxay sheegaysa iyo horumarka muqdisho waxaad moodaysaa caalam adduuniya la jaan qaada way mustarigiina ilkaasuu marayaa nabadgelyadii ilkaasuu marayaa horumarkii hore u socotaa wadankii nabad iyo horumar buu u socdaa nabadda iyo horumarka ka qayb qaado dalka kaale baan ku leeyahay arago waa yar waxa weeye markaa ka sheekee waa baasata horta waa dhibaatada way taala dhibaato intee leego waxaana keena dadka Soomaaliyeed la barkicinayo hantidii guud ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxaysay oo aan nidaam sharci loo marin hamoodi horta marka hore inaan dawladda diidanahay xasan sheekh aan mucaarsanahay laakiin macnaheedu waxay tahay systemka dawliga waxa uu dawladdu u yahay annaguna waxay xaq u leenahay inaan la xisaabtano wixii qaladana aan sheegno laakiin nin diidan dawladnimada Soomaaliya xashaalida waa ka fogaay nin Soomaaliyeed ku dhaartay dalka u dhaartay dawladnimadiisa ayaan ahay u soo shaqeeyanahay arjacelna maartay wadankii inuu nabad ahaado horumarkiisa barwaaqadiisa aan ku haminaanahay laakiin mas'uuliyiinta maanta xilka haysa in la xisaabtamo runtan loo sheego waa waajib adaan ku weydiinayo waa ku sii celinaya waxa wax lagu farxaa ama nabadgelyo ka dhacaysa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida in hantidii guryaha meelaha ay ku dhisteen oo ah danta guud ay deganaayeen ay ku nacfinayeen oo sidii ku meel gaarka ay u deganayeen in intii la yimaado wax ka tarabil la mariyo ganacsato dhaqaalaha ay haystaan iyo dhaqaale ay dadka hantidii dhaqaalaha ay haystaan dhaqaalihii shabaab laga keenay in hantidii dadka Soomaaliyeed lagu iibsado oo nidaam saas aan loo samaysto oo la boobayo oo maalmo hooyada Soomaaliyeed calacalayso wadooyinka ay taaganta dariiqada ay taagantahay ciidamada qalabka sida hooyooyinkoodii iyo xasaskoodii ay ilmahoodii jidka la soo dhigayo waxaas nabadgelya ka dhalaalaysa ma waxaas isleedahay wiilka maanta ciidanka xooga dalka Soomaaliya kamid ama ciidanka booliska Soomaaliya kamid ee xaaskiisa asigoo shaqo jira xaaskiisa caruurtiisii banaanka la soo dhigay ma niyad uu ku sii shaqeeya imaan doonta maxayse keeni kartaa nabadgelyada qayb intee la ka qaadan kartaa soo dhici mayso in bulshada iyo dawladdu isnici maayaan soo bulshada loo ma aha bulshada shalay loo dhaarto Soomaa in la badbaadiyo naftooda iyo maalkooda waxa kaga sii dar in hantidii xataa laftooda aqaladii yaraa ay iyo dhismihii yaraa la burburiyo oo nidaam sharci oo loo marin oo aan la ogeysiin la dhihin waliba ka guuro oo fursada guriyina jinkadiina fursada xataa la siinin ee si naxariis darraa kan tarbiil loo marna ma waxaan soo dhaweey karaa ma waxaan wax nabadgelyo ku imaan kartaa nabadgelyadu waxay ku imaan kartaa dadka oo hel cadaalad ayagoo hela sharciyada wadanka sharciga la furiyo isla markaasna dawladda qaanuunka ay iska talaabsan laakiin haddii dawladda qaanuunku jabinayso dawladnimadu iyo nabadgelyada dhowraysaa wax imaanaya ma jiraan aan si dib ugu noqday ma wax lagu farxaa waxyaabaha daqiiqada maalmo baraha bulshada soo yaacaya ee hooyooyinka qaylinaya ee aan cid u naxaysa ayna jirin hantida lagu takrifanayo dadkan danta guuda sultan waa taagan tahay magaalada Muqdisho taas ma waxa wax dhinaca laga qarsan karaa ma waxaan ka aamusi karnaa ama ku weydiinay horta marka hore dalkiiyo dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa loo mariyay kama hadleeyo hantidana dadkana horta hadalka iga bax hantidana waa hanti dawladeed dawladana xaq u leedahay haday agaf mara haday ka saarayso iyo haday siinayso dawladda xaq u leeyahay siiso ama ay ka saarto hantida dalka iyo dadka Xasan Sheekh Maxamuud baa ka mas'uula xaqna wuxuu leeyahay gacanta dawladda inuu dib ugu soo celiyo dadka ku jira dayartaana inuu magaalada koonayaasheeda beero uga gado oo boosasiyo oo dibadaysigu sameeyaabaa laakiin taasi way sheegta laakiin dad hantida dawladda leh cidna waa lagu gorgortay maayo dadka deganaana dayar boomay badneed dad saaxiiban meelaba intay qabsadeen iyo dad madaxba intay qabsadeen dad yar ka kireeyeen dadkiisa ka dhisteen marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anigu waxa dhiiga la marihi dawladda wax mushaara kama qaato haddana wax wanaagsan buu qabtay lagu taageeraa baan leeyahay dalkiiyo dadkana isaga ka mas'uula ما مسؤوليتاس iyo dood kama tagan wax qawadan ka hadleena anay xil iyo xil aan anay kama hadleena waxa ka hadleena mas'uuliyadda muwaadinka madaxweynaha dawladda cid walba oo mas'uul ay xil haysaay
in lagala xisaabtamo xaqaa loogu leeyahay marka suldan waa kaaga mahadcelinaa sida soomaalinimada leh ee wadanida leh runtii aad aan kaaga mahadcelin waan kugu soo dhaweynaa aad aan kaaga mahadcelina saaxib aad iyo aad baan ku salaamay aad iyo aad masta waxaan leeyahay maqlaysaa si wanaagsan maqli fariinteeda ugu dambeeya halkan aan ciddii dhegaysanayo Soomaali baan u sheegay wax weeye war dadka reer waqooyiga way tashadeen dowlad badisteen dhowr iyo 30 sanadood reer koonfureedku ha tashadeen gacmaha ay isqabsadeen amnigooda ha ka shaqeeyeen horumarkooda ha ka shaqeeyeen waxa weeye odayaasha dhaqanka hadday tahay hadday siyaasiyiinta tahay hadday haweenka tahay hadday dhalinyarada tahay dadka ku nool Soomaaliya koonfurta Soomaaliya nabadgelyadooda iyo horumarkooda iyo midnimadooda ha ka shaqeeyay sidii ay nabadgelyo u heli lahayd cid kasta cadawna meel looga soo wada jeesto guri walba guriga ka xiga ha eego qof waliba qofka agtiisa taagan ha eego qof waliba qofka ku soo kordhay magaalada ha eego waxa weeye cadawga lala dagaalamo meel looga soo wada jeesto ma lahayd dadka jooga koonfurta Soomaaliya assalaamu calaykum aad iyo maasanta dhiirigelintaada iyo wacyigelintaada aadan kaaga mahadcelina suuda ugaas Allah ku dhowraa maasanta ugaas الله يسمع ما شاء الله وقاس aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan الله يسمع وقاس ما صدق ادي الله كله الله كحفتي كاس وقاس كمي وقاسيه Soomaaliyeed ee beelaha Soomaaliyeed beel kamida waa ugu mahadcelina inuu waliba gobolada qoy ka soo jeeda waa ugu mahadcelina sunta aragtiisa fikirkiisa waa soo weyn assalaamu calaykum Abdullah ku soo dhow Soomaali wadan TV maanta maxaa ku bax hare ani adiga oo tii aan baasanen laakiin banaan bixi waa dhaxay waa laga soo arkaa ما هرت إفان برا بعض وهو بالعيف وجيس وبيلا كذا ولا انت كلام على مقارنه إلا الضوء ولا غير استاجي انا كل شيء تاس بنابع انت كويناي هاي هرجع لك تفكير كذا ما هرت واحد لا يا حسن شيخ يا انت ارضي ديارته انه اورتي واحد لا يا بوكس هاي بروتوكول دول اقوالات تاسي كينسا نعم الدول سو مهلك انه الوزاره horta waa maasanta dadka oo dulqaadanaysa iyo qof mucaarad ah qof mu'ayyid ah niyo aad baa ku salaamaya soo dhow wadani baa tahay dadku adkaysigaas ma wada rabogta sax laakiin niyo hadda ninka u dambeeyay waan la yaabana hadda afkiisa wuxuu ka hadda kor waa la afduubtay baxar hees zubayl ما أوي تاس ما مقال واسك ولا أفضل تصير مقالنا. نكو أساق أنا هذا كل ولا أفضل إلى بلكي ولا أفضل بل جيستي ولا بحيي صحون كان اللي جبي بل جرسي أنا وصلت كور إلى بلكي. هاي واقف واسك برجع على واسك سانجا برجع على واسك كذا ومننا. ولا كنت في القبول ديسو. ونك لما أبيشتي الجوي أي كسر الجوي أنت اللي عندي وسوي فرصة محكمة صار إنك سوقتي يا أير أفرد الجوال اللي بس عيد قف كدوك يرا متقنا مجلس وقرح مقطع ماركو قرح وين مقطعه أساس كسر زبون هاي حمر كدعايو وما كدعايو بلعب وما مسكينه وكدعايو البرف ودك نقول لي أو بركعي قبل يكون هوجي بعد الوهي وديك أنك بدل الوضعي أركني نيك أوديك إله كيام هيو بترهيو أنت إنه كدايا بقلبه أنا حمر الجواب دوسر والله بريح وأقول له قطع سلية وترك القطعة وفيني وأباب اللي موسى سوداء وكلوية أو بطران وأقولها كجران سودان لسبب فليس إلى بنقول دارشين محاركتي فيني مركو كلها هي غلاديستا وهم بعسكتا وح غلاديستا بدك كليدي إسحاق مجالس برعاية الجيسوس مالك كبير هنا بدل كذا عاية قرح تورمار ما اوكي محل لو واي مدحوين aan dhicin ayaga way abwaanada u badnaa sanadka u dambeeyay xamal ka baxay ayaga u tageen afar ba u tagtay madaxweynahooda ay waqti filan oo ayaga majority ayaga ka ilaa wajis صح midkii darbalka oo oday ah soo socday ayagu u tagay arkaysa bakida loo baa laga hayaa raashinka wardiyo soo markin صح nimanka meesha ku hayo godana ahaa ayaga way waxa nimanka meesha ku hayo waa ayaga waxa xamal dadkan dhibaatada ku hayo waa ayaga waxa diin tuur waa ayaga bal fiiri ilaahay ku dhaafay Soomaali waa arday waa isbedela farmaajo Xasan Sheekh Shariif Cabdi Qaasim Maxamed Saad Barre waxa ayaga oo isaaq ka dhigay madaxweynaha dhacaynin soo kuma caday in duurka ma ku jira ay madaxweynaha
أدينا إلا أنا سجاس لنا واو أسقرونه ما أنت شيء صحاب بينك ما كوا marka dhageyso daash markii la yiri ka warraba braayo dhalinyaradu waxay dhahaan Puntland daash ba anaga ya dadka naga soo ay maqlaysa waa maqlayaa marka odaga intaas la eg oo ugaas baa ku hayo ugaasnimadiisu ma beesha ugaas Abdullah waxaad noo sheegtaa daashiin ayu daash waa ajnabi iyo dad xaq dil oo Soomaali ka faleermay هيه ما جاي لك إيه يتجسين بيا ارتاعش يقوليش واحد أساس يا واحد ودخل هيه لكن ده واحد كمان داعش وأنا من مرت إيش دارد مثله أو شباب ما دام يساق ويست أنا تاس مجتمع هوياي هذه هويدا بس يعني هويدا هذه رشيق أو قواريجة أو داعش هاي وحاربها اللي دور على صبي هيه لك عاو كله أنا والله نفس كواي سوبر نمك بعد حكم كهيا ونمك أنك غريب جري بس ما بترتاي هذا ده حركة من جيس يا بقول حركة إنه كل جيس أنت ما لا تدري صدق جالس جدي ما أي مركز بحي نمك وحين نقول واحد بعشرة أو دكان waxa arkayso waa si shaqeeyay waxaas arkayso dhanba waa wada shaqeeyay ilaahay ballinkii magaciisa waxaa aragtay adow axmedow ilaahay baa kuu dhaashay sheekada iiwiirkaadi waxaa aragtay 3 sano ka hor xasan iyo gabanka dagaal la qaadaya maanta galcad baa yaa dagaal ka socdaa umrada muskeeda ilaahay wadiis oo qofkii adibo u baqayo afgooda la siman ilaahay baa kuu dhaashay 3 sano wixii la dagaalama oo baabuurka halkan laga furaysa lagu tagaya xagee soo mareen ma diyaaradu ka imaadeen جوهر الديارة اللي وتجاه waxay ma ku soo dhigayso askarta saraakiishii madaxda ahayd oo wada kumaan dooska ahayd waxa la tigdi ka duwa taaka ay wada gumayso dadkii magay ay wada asay wada qaado dadka wada agoon yahay aw dadka muxuu kala maaday hadii gacan loo diray maad asala wadiina ugaaska hadda fariinta soo dirba oo ku dhageysana ugaaska fariinta soo dirba ugaaska hadda fariinta soo dirba ليش وضع محمد لا بقول أشياء أول سراكيش كمان دوسك هيد وفيري حسن على غيره فهذا أنت بتتوبرين بش يتوبر بش أبريل جانوري جولاي واحد أفتس من جانوري ما سراكيش وياري واحد كله يجري تواليريو أنا كان تدرنان عينا تدرنان حاجة جينا صلاينا اللي بده يا ودي لاين سوريا لاين برا استاجي جرينا لي أنا وكسر شقيسنا لي أو عون درني هالكاس يمركز ولا كسر شقيس أنا فاهم خرت أنا فاهم حمر ما أركب جرت بهال جار وأنت كتنا بحال وبيجي عروة طاء جليد عنطاء تدك عنطاء عروة وحسب البريان ولقي ماركين جار جوتين سجنوت هي هروي هي فيري إلى بل حسن وجار جارت وحامر نافت وحكسر لغلا waxa la socda waxa ka qaban karaan Maryan way dalka iyo fiiri waxa artay baarlamaanka Soomaaliya xasan ba iibsaday askarta Soomaaliyeed oo baahan oo qaadato bal lacagtii ay xasan al qeyri u qoreen iyo dadka rag sanad u kordhiyay 5,000 waxa qaatay 5 waxa qaatay gurigii jiif sababtana walaal صح marka waxa la yaab ah ilaahay ku dhaashay 3 sano meesha lahaa anaga shaqada u hayna waa dhameeyo hayna ninka yiri maanta xabad ay ka dhacayso magaalada muskeeda dadka hooyada dadka hooyaba anta maxay agoon u noqdeen ko waa aragtay salaad kasta hooyada ooyeyso cagafta la maray waa aragtay gabdhaha iyo gurigooda ka maqan inta cagaf la mariso istaagay meesha berbera oo yahay ninka odaga ilaahay ka baqay waa bil soo shabaan basi baxaye mise ilaahay ka baqay mise dhaxris lahayn magaalada muqdisho oo laga kala haaday oo wala wiilka baskiinka oo yahay balaayaan عروسة على الجارية عروسة حسب أسبوع عشرة كمان نوران كرنا موس محنا أسكتنا ولا هدو حلا العجقات من بدك وحقنا يوزع إلى مرزاقي بس حسن كنت أجيله يا قبل ده بحاجة أو ملك كستكفش المية أو يطول ميدو كاي وقال أنا لا ما تقدر في الطبق هاي ويا إثيوبيا ضد الصومالي مو سهيلين هذا إثيوبيا ويرك صعد لوك صومالي واحد جاب ساقة مهيد دون تايسلا maya horta waxaan ku yiraahdo xasan ilaahay baan ku dhaashay anoo adeerkii waxaan rabaa inuu ana sal xusaan wax soo soo ninka inta Itoobiya tagay oo shirka Afrika Federal ka qayb galay ayar inta ma loo xirtay asoo dadka lagu lagu soo fakiyay inuu ilqaad waay
وإثيوبيا أي تهذا الصومال الدول كيف ترتب كهم مرينا جوتو من نك نوع عسى وهذه أسكت اللي قدري دورو وإثيوبيا أي ليسي حسن مجنى كبقى مرحا كبقى نك اللي هنا واسترس الله كل عسكري بقى كشكلي هم كذا يسوتو من فريق أول بالكنا حسن واسكت لها هذاك عمرك خناش وماشي كويس وقرنايو بس إلى كبقى hadda adii maxaad filaysaa meeshaas heshiis ka dhacay iyo waxa laga hadlay maxay ahaayeen fariinta safarka Idris maxay ahaayeen wuxuu yiri dad todoba degmo galay waxa Ethiopia haysato yiri oo qof ka badan haysta yiri Ethiopia ma asaga marna u yeerayo marna la baranayo aw dadkii way su'aasha ugu dambaysa ku diina su'aasha ugu dambaysa ku diina ma halka ariga iyo galow haye firi dadkii uu lahaa أصبح حصر على درن إثيوبيا عرفت أنا أو قرن مكتنا دوي أوكي أو مدهرة أو رجل صوحي أو رفرة أو بناك الربنا أو دبيك اللي جوا فبي كل جري أو أسرات دكتور برا الورن تي وعلى كسر بعد بلكا أنجا بدأ أنجا إسكارة واي أنت الواي مش إذا ما أنت إن لوحرة ضدك مساكينتها أو بيش سوون جري أو موتين حريين أو اللي شيء إنه نقدر لو تكونين العرض لو حرا حصل أري أنا ضرب لو تكتي يقول هذا الشيء هي أوكي كو حسن ذكر ويلك مسكينك ويل مسين هاي وأنا هاي وحد ما تهريبك توبك كل عسكري بعد ما تح قف حسن ما أروح وقت عسيري بلكن لو سؤال وحكي وعقب كروكي بالمرادي وحكي عسكري كل ما أنا صار اللي صار بيبكي ما حنا حياة نكان إلهي بقى تعرف بر وبر من نحول كتاب جامعة قالوا تقولوا لي لكن والله إلهي بقى كل شيء حسن أوكله أنت الصومالي بحوالي صومرتي ومام الجبال صومرتي حسن نكان حريستر وكحسابهم وأنك عروتيدا شغلة وديبنا حاجات كوارتي جبر جرمامة وأسوأ وراي ونو وسيرة للدكتور الظاهرة أنا في جذور نسيناه كسفر كان ودراي محيطة سفر كه ما شاء أبي أحمد فرنت إدريس محيطة نوعية واسلة أنا كل شيء أنا كل شيء تبي صدق فائدة أنا يا أحمد إلهي بقول لا شيء أنا بدأ أنا عسكري كل بدأ أيضا تركي بدأ عسكري أنا سبب إثيوبيا عسكري أنا إنتان إذا كنا جاعوا الأرتساوة تجنا هذا المال النظام الجوا حسب يقول لي إنك تسلق استعماره بدي سلقاته ديجري سلقاته أودي سلقاته وأنا كمان أبي أحمد بدلهين أنت بدي صومالي يكهني أسعد كلام سنين عرفت إسكال بدك كنت أنا أودي كدري لا بقول ده شيء إذا كل شيء صح إثيوبيا حيفا إيده ولا إثيوبيا حيفا إيده إذا كلا على سعر عام صار أو الله فصحي وحيفا إيده صحيح المصبح أو تعبنا أبي أوجره وحيفا إيده تركيا أو أوجري تركيا أو ليدر إثيوبيا أو صومالي ملك كل فيه حسن كده يعني أبي كنت أنا كاور ديني إنه wax kasta si taasoo dhan faa'iido qaadka la fasaxayo Ethiopia hada dadka qaar waxay ku leeyihiin xasan sheekh waxa madaxweyne Abi Ahmed wariyaa waa uu tukanay gaalada dhibatay oo baqtay arsoobe Abi Ahmed dadkan uu tukanay maar adigu ما shaqadiisu waa xasan inuu sidaas u sujuudo markuu arko waska dhaqanka madaxiisa marka la ku cabiraayo madaxna madaxweynaha maxaa kala leeyahay isoo ogna taas madax waxa kala madaxweynaha wala إلى لم تستحي تسمع معشيته هذا شيء واحد من السنة طفك إسلام كأول إنه تذكر فيه مركز مدحوينتها أما الدنيتها وأنا تذكر إلى السوق وأنا شرفتها إلى السوق وأنا إلها كبغضه لكن أنا تذكر أدود أعرف مسلم كان أتخشك قدرته أعرف بريس dadki gaaladahaana aad u tukato buuriyadaha ay isqabay su'aal ma walaal wallahi xisaabtaas ku sugaysaa dadwaya wuxuu lubanahay ani adiga waxa ku leenahay mas'aladana ku ciyaarahay sharaftan iyo maalkan iyo ukaniga hada asaga ku hayno xasab waxa ka soo haray adiga waliir ka hor inuu carradida wallahi waxa dad Soomaaliyeed iyadoo taala oo mas'uuliyiinta Soomaali wakiilka baarlamaanka laakiin intaan hadli karno oo shacabkana la hadli karno oo aan wuxuu sheegi karnaa waa waajib firi nimanka odayaasha ahaa oo firi ilaahay baan ku dhaashay odayaasha ahaa oo xasan cali khayr iyo sheekh shariif iyo cabdillah shakuur iyo oo markuu 40 coddaaf waa xilka u dhiibay
xuquuqta kuma siri kartaan labadii maamul goboleed oo u dhiibay midna u dhiibay 80 midna u dhiibay 60 yaa ku laba bara loo deejinayo leeyahay doorasho ma soo galayaan kuwa kale wuxuu ugu daba doorasho ay joogaan yaa u fasaxay walaal waxaad ku aragtay madaxweyne maamul goboleed 4 sano joog sidii xasan inta la doortay fikir ugu dhamaada 4 kale joogaan xasan waxa shaqadiisa waxa loo joojinaa wax la yiraahdo isticmaala horaan u soconayna waxa loo aan kaskara kaseeyaa waxaan bulgeena arag madaxweyne maamul goboleed oo 9 sano ama 10 sano jooga xaga ku yimid xasan asan sharciga ka bixiya awood dadku isticmaalaya oo ninka maskiinka dadku ma waa la xisaabtameyno taas keent sabab ah dadku ma waa mas'uulka oo ila xisaabin loogu talagalay ayaa la xisaabtameen dadkaas oo dilooshay oo hebel waa dilooday hebel maqli jirtay hebel waa dilooday maqli jirtay baarlamaankii iyo mas'uuliyiinta kala dalka ayuu dilooday ninkaan marka cabdullaahi waqtigaan ugu dhamaaday waa soo gabagabeyn waa kaga magacilin waqtigaan qaaliga nala qaatay allah ku xifdiyo waana mahadsantaa saaxib على عيسى ما شاء الله سومالي ودين تي في ولا برتا برامج فلقان سياسه فلقان درا بشده aalaba ku soo qadan qodob ama laba qodob hadaba aan barnaamijkeeni halkaas ku soo gabagabeyno waa anaga Soomaali wadani oo ile habeen wanaagsan meel walba adduunyada ka joogta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay daaday safaray talo tusaale iyo fikirba waa la soo xiriirtaa Soomaali wadani tv adigoo la soo xiriiray oo soo wicitaanka WhatsApp naga soo wacay ama fariin qoraal cod inta badan duubi kara hadaba ku xiro waan warbaahinta kaliya ee aragtida bulshada si toos ayadoona wax faafreeb lagu sameeynin wax faafreeba aan lagu sameeynin fikirkooda si xor ugu dhigta hadaba ku xirow la wadaag asxaabtaada si Soomaalinimo si wadaninimo si dal jaceelnimo annagu inta badan dusha iska saareen mar walba dusha saarsan inaan danaha dadka Soomaaliyeed waxaan ka horeysiinay inay jirin wax walba ay yihiin inaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed danooda ka shaqeeyo waa mar labaad imar saxano Axmed oo dhaay habeenkeedii waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatu ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dalkeena nabad iyo barwaaqo in ilaahay u horseedo shartay balaayada ka jirtana ilaahay ka bixiyo mas'uul caadila dalkan uu keeno mas'uul dalkan haya iyo mas'uul dalka haysaan waxa dad loo xishaa meesha ma joogaan waa dad dalka in laga badbaadi baane ilaahay waxaan ka baryaynaa ummad dalkan baas inay uu keeno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatu meel baa joogta mar labaad imar saxano leeyahay Soomaali Maxamed ramadaantii soo dhow waxaan leeyahay idana ramadaan kariim